muuse biixi cabdi ayaa la filayaa in uu dhowaan magacaabo guddi gaar ah oo ugu talagalay in ay Soomaaliland u matasho wada hadallada Soomaaliya. Warar uu helay wargeeska Geeska Afrika ayaa xaqiijiyay in madaxweyne biixi uu ku guda jiro ka baaraandega xubnaha uu xulayo in ay hogaamiyaan wada hadallada Soomaaliland iyo Soomaaliya, inkasta oo ay hadda hakad ku jiraan wada hadalladaasi balse ay dowladda Itoobiya dabada ka riixayso. wararka ayaa sheegaya in guddiga ay u badnaan doonaan aqoon-yahano reer Soomaaliland ah oo qaarkood hore uga qayb galeen wada hadallada Soomaaliland iyo Soomaaliya xilligii uu talada hayay madaxweyne Axmed Siraanyo, waxaana uu helin doono xubno siyaasiyiin ah. wasiirka arrimaha dibadda Soomaaliland Yaasiin Xaaji Maxamuud Xiir Faraton ayaa la filayaa in uu gudoomiye u noqdo guddidan. madaxweyne biixi ayaa dhowaan sheegay in aanay jirin shir qorsheysan oo ku saabsan wada hadallada Soomaaliland iyo Soomaaliya, laakiin ra'iisul wasaaraha dalka Itoobiya Abiy Ahmed ayaa la fahansan yahay inuu culays saarayo wada hadallada Soomaaliland iyo Soomaaliya in ay qabsoomaan, isagoo oo markii ugu horeysay bishii February kulan isku soo horfadhiisay madaxweyne biixi iyo madaxweyne Farmaajo